manta boliskeni weye manta wa mari weye manta boliskeni weye manta war heedad lama gaarin luuliya waa maxay maalinkaad sheegaysaan maanta maxaa soo kordhay munaasabada qaranka booliiska Soomaaliyeed weeye maanta waa maalin weyn maanta aanu qaadin waa gartay oo booliska gormo dhashay booliska 1943 baa la aasaasay booliska Soomaaliyeed kadibna 60kii markaan xorriyada qaadanay asagoo koonfurta iyo waqooyiga ka kala jira ayaa si qaran loo wada hawlgeliyay oo la isku dhafay maanta bolseri weeye maanta waxaanu u heeganahay ama aanu hubaysanahay dariiska u haybsanaa inaan hagardaamadiyo hujuumkiyo weerarada adaawuhu soo muhmay danaystaha soo horgala hadiisa xaqiijiniyo inaan hadafkeena guud hadii sheer daafacna hawshan qayb ka tahay waxaanu u heeganahay ama aanu hubaysanahay habeenkii leylka dhexe dadkeenu markay hurdaan hormaha roondaynayee hawada gaafmeerayo ilaalaan hagar lahayn inay hay'adaha qaran dhammaantood naga helaan hawshan qayb ka tahay waxaanu u heeganahay ama aanu hubaysanahay dariiska u haysanaa dunuubtan ka hortagnaa hagaaga uga daba tagnaa dambiilaha had iyo jeer sharciga la horgeynaya hawshan qayb ka tahay anigu booliska waan jeclahay meeshaan ku arkaba waa u hambalyeeyaa waan soo dhaweeyaa amniga ay sugaan maanta ay maalintoodii tahay waa u hambalyeeyaa ha jiraan ha joogaan ha sii kobcaan baan leeyahay anna waxaan ku darsanayaa waa sida saaxiibkay sheegay booliska waan jecelahay waxaan soo xusuustay dawladnimo iyo amni iyo wanaag haddana waxa ii muuqata dawladnimo inay soo noqotay in booliskii la soo celiyay dawlad baan arkaa dawlad war heedaha anigu xitaa booliska waan jecelaho gaardiskooda kaaga daran saaka hadaad aragto waad gabadha calanka sida seefta waxaan ku midda saa garangarta u galoono oo dabku ka dhaxshaday saa uga dhex dusaysa oo aanba dabku xaganayninba hadaad aragto waagi hore waxaa maqli jiray boolis baa qof habeen ceeriya oo tuug bay tacayna ka fakado wala tuug hadda malagiis gala warmaanday anigu waxaan ka helaa gabadha mootada wadata oo markay mootada saaran tahay dhulka inta seexata ay dhagax ka soo qabsanaysaa waa la yaab miyana dhaceen waaba yaabay haddana waxaaba ka sii daran gabadha ku xigeenka booliska yaa say u hadlayso hadalkeeda markaad dhageysanayso wuu kugu soconaya waana xog ogaal sharcigeena aad u taqaana alla maanta booliska qurux badana meel walba muhiim ah gabar baa madax ah ma sha Allah sida ku sii wada caaddaas cirkaba maraysan baan ku wareeda waxbaad ilowdeen horta aan idin sheego intiina qof waliba hooyo inuu leeyahay u maray ciidamada Soomaaliyeed hooyadood ma taqaanaan horta kawda luuliyo way warkawda luuliyo waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed hooyada ciidanka Soomaaliyeed waa 20 December iyo maalinkii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed waa kuwii ugu horeeyay oo ciidan ay Soomaaliyeed yeelato kuwii ugu horeeyay way sidaasi hooyada ciidanka Soomaaliyeed ku yihiin ma sha Allah waxayna dhaheen maalintaas dimuqraadinimadiyo hanka dawladeediyo sharcigiyo dastuurkiyo danta guud ilaalshaha dumada u hibeeyiyo booliiskii dalkaanahay dulmanaha u hiishaha booliiskii dalkaanahay shacabkana daryeeliya dacaskiisii baanahay hayinda abadaanahay iyo biyo madaadshaan daba dhilib shisheeyiyo isku duubni diidana seefta lagu dilaanahay dibu socodna ma ogoli booliiskii dalkaanahay wareer iskumaan maxaa kaloo war farxadeeda ama wargeesaada oo cusub maanta cusub in ay yimaadeen oo xaadir yihiin guddi ka socda shacbiga Soomaaliland oo soo gurmaday oo guddigu ma waxay u yimaadeen wada hadalladii dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland wariyay guddidu saama iman guddidu waxay waday deeq loogu talagalay fatahaadihii webiga oo la siday gurmadkii horeeyana maaha kuwa kale waa soo socdaan kuna waa gurmad maantaanu keenay meedaan la soconba odadaas waxa
timid waqooyi galbeed Soomaaliya Somaliland waa dhulkii Soomaaliyeed Somaliland baan jeclo raali ku nahay Somaliland ma tiraahid maxaa ku dhigtay gobolada waqooyi maxaa Somaliland maxaa laga wadaa Soomaali waxa laga wadaa ayaba waa dhulkii Soomaaliyeed marka waa dad Soomaaliyeed oo deeq ka soo qaaday dad Soomaaliyeed keenay oo keenay dad Soomaaliyeed walaalahooda Somaliland ba ka keenay war heedaha waxaan maqli jiray shirkiis lahay jariid kama qoslo Somaliland horena way soo gurmatay haddana way soo gurmatay waxaaba iiga sii daran waxa soo dhan badda Soomaaliya sida ay uga dhiidhiyeen Soomaalinimadana faraysa waryaarhay waxaan idin sheegayaa gabadha hadalkeedu waa sax waa xigmad maamaha Soomaaliyeed baa jirtay laba dhaxal isku haysata maxay isu yihiin lama yiraahdo halka doodu kuma jidho laanahu dhaxal sideedaba waxa keena dhalasho Soomahan dhalashana waxa la yiri dhalashiye dhaga geel midna ma guuraan horta waxaad ogaataan waxaan dhiig iyo laf iyo jiir isku talaalan inay yihiin siyaasadda iyo dhalashaduna waa laba waxa gurmadka ka keenaya qashada ka keenaya in ay ka hadlaan qadiyada iyo badda Soomaaliya ka keenaya calankan iyo xidigtan dadkii sawirtay way marka siyaasadun ba dadkan ku kala xayndaamane waa ayadii laakiin su'aal baan qabaa talow maxaan u dhigay calanka duubnaa iyaga ma u dhiibnaayo albaabkii wada hadalka afkaaga caana lagu qabay walaashala ayagoo duuban ayagoo wada oo la gaardinaya bay keeneen waa ku qaadanay waxa yar baa dhacay waxaan qabaa inay mudan yihiin sidii oo kale in ayaga loogu hoydo oo lagu qalciyo oo cimaamad looga dhigo ma ka run sheegaysaan oo sidaa sheegaysaan haddii ay idinkoo isagoo duuduuba noo keentaan waaba idin raaclay ma ka run sheegaysaan sheegi wayna midugtuba maciin ma leh hadday bidixdu maqanta waayaa ka run sheega anna waxaan leeyahay muxubiga kalgacalkaan u qaba waa midigu weyn maandeeq raggii dhaliyey iyo midu wayaga iskumaan iminka haatan waxaa la soo gaaray barnaamijkeennii maxaa sixid u baahan iyo iskumaan nooya horta wixii sixid u baahan oo ayaga sixid u baahan cidii inay saxdo mudan ayada mudan inay saxdo waxaan se idin sheegayaa hadda ka hor baa waxa dhacday la dagaalanka musuqa iyo kala hufta iyo kala haadinta iyo toosh isku bixinta waxa way guntiga la isku dhiijiyay ayaa la yiri hadda ka hor Soomaaliya ma ogtahay meel baa la tuhmay xoogaa mid madow baa lagu tuhmay waxa la diray baa la yiri koox waxa la diray dawladdu u xil saartay isla xisaabtanka iyo dabagalka musuqmaasuqa waxay dhaqaaqeen ayagoo hees ay u shidan tahay la yiraahdo haddaan la xumaynin xisaab xilmale bay dhaqaaqeen oo loo sacabinayo muddo markay sii maqlaayeen nin baa hadlayo wuxuu yiri warnimayahow raggii la tuhmay raggii loo diray rag ma laga daba diray hadalku fariin buu noqday dawladuna waa ka jawaabtay kalmadii noocaas war halka muxuu ka wadaa iskumaan halka muxuu ka wadaa war wuxuu ka wadaa dawladdu horta waa dadaasho khayr Allah siiyo xafiisyada wakaaladaha wasaaradaha hogaamada warfaafinta meel walba oo xarunta Soomaaliyeed caasimada ah iyo hareeraheedaba kaamirooyin iyo tooshash baa saa u dul yaala musuqmaasuqaysa u iftiiminaysa mid walba way qasnad walba waa la dul taagan tahay laakiin hadda daafi baa warku aad u yar yahay yaa daafaha warka haya waryaareen waxaan idinku yiri ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka miyaydaan ogeyn mushaharkoodii in toogta laga dhigay oo ciidankii kuwii aan shaqayn jirin uu taliyaha ciidanku ruqseeyo meeshaba ka saaray iminkana intay leeyihiin nidaamkooda iyo mushaharkooda iyo waxoodaba toogta laga dhigay oo arrintiba true inay tahay toos inay tahay miyaydaan ogeyn waxaa kaloo la sheegayaa bisha soo socotay January ama bisha koobaad qofba sidii u yaqaan in lacag loo kordhiyay anigu waxana ka hadlaysaan tooshka la sheegayo war anigu ma garanayo wareeda waxa la sheegay ciidamo gobol la geeyay oo hawlgal loo geeyay oo maqaayada saaran garaamkoodina aan lahayn hase haatee waxaan leenahay musuqmaasuq Soomaali waa meheradeedii musuq la deyn maayo hase haatee sharciga ka adeeg doona sharciga war heedaha waxaan leeyahay meel allaala meeshii musuq ka jiro dawladdu saacad sheegada u soo qabato talaalka duudiyahana noo keento waryaara iskumaan
arrinta aad ka sheekaynaysaan ee ah ciidamada qalabka sida ee gobollada jooga isla xisaabtanku inuu gaaray in kale aniga waxay la tahay taliyaalka ugu sarreeya ee ciidamada qalabka sida inaanay xog hufan u hayn ciidamada gobollada ka howlgala haddii aanay il gaara iyo fiiro dheer u yeelanne arrintu waxay isugu biyo shuban doontaa ratigii reeryadiisii cunay oo waxaad leedahay ha ku baraarugaan arrintaas gobollada iyo degmooyinka in isla xisaabtanku gaaro si degdega alla ilaahay waa sax arrintaasu waa sax waryaayaha iskumaan la dagaalanka musuqa iyo isla xisaabtanka aad sheegaysaan maxaa u diiday in la geeyo gobollada oo ciidan kasta oo meel la geeya in ay la socoto laanta dabagalka oo xuquuqdoodana la ilaaliyo oo xuquuqdoodana la siiyo saxan saxa udgoon badan sanka kula raaca wareedhe maxaa kuu carfay adiga saxasaxada iyo carafta iyo sheegaya maxaa kuu carfay saaka wareedhe waxaad yeelaysaa horta anu maqaayadaha badan ee magaalada ku yaalla halka maqaayadoo gabadhaas indho quruxa ay joogto waa maqaayada aan kala hela sideedaba waxaa ii soo carfay yoonka maanta adduunka halkaa la dubahaye bal waxaad yeelaysaa fariisaan quraacad waxaad yeelaysaa duca qabto haa soo dhawaada walaalo waa dhownahay waxaad yeelaysaa horta maqaayadaha kale shaqaba kuma lihi riixda carafta iyo adduunka aad kala yaacinayso shahaadan ka wata wax karintii hayeen libaaxad baata waa ku jira waxaad yeelaysaa waxaan u baahanahay quraac degdeg ah maxaa yaallo saaka waxaa yaala hilib ari hilib geelbeer ari canjeelo rooti sabaayad isbish ukun isbishale hilib ayaxna waa yaalaa ayax maqaayadan aniga horta kuma qorinay mid shiila mid karsan mid la umataatay dubitaankan ku jiray waxaad yeelaysaa asaga iyo xoogaa liindharan hal saxan mugdiis sug dalka majaynis baa joog maxay hilibka ayax aad sheegayso walaale alla dhoreysana dhaheedhe may maqlaysaa Soomaalida aan waxa weeye ayax baa nagu dagaysa 20 trilyan oo ukun ayaxa waddanka saas hay'ado ugu daadiyeen si u daaqa sanadkan barwaaq u ahay dam uga siiyo ayagu maxay sameeyeen waa hore ayaxooda iyo kibileydooda iyo kabajaankoodiba qasheen dadkaas ayaxu waxa weeye buritiin daawo leeyahay ma garanaysaa hal saxan oo ayax oo si fiican loo shiilay iyo liin dhanaan miiska rigayga soo si duca qab beeraha idinka cunumad ka aarsanaysan cuno u aarsanaysin si kale oo lagu dabargoyn karo arrintaani ma jirto maadaama diyaaradii iyo buufinkii iyo ayixii iyo wakaaladii aan lahayn internet ka soo gaarahayo alla ilaahay waa inaan gowskeena ku dabargoynaa alla ilaahay haddii kaa la shiilo oo aanba beerti cunay la dhameeyo ka aasana uu dhulka kaga tegey sidee loo gelaya waaba barwaaqe waa waxaan sugaynaa ay shiil subax walba war u kaadiya ma waxaad ka wadaan aan dabargoyne alla ilaahay waxaad ka wadaan anyaxa aan dabargoyno gowskanaga waliba aan ku dabargoyno sida digirta ay borotiin u tahay ayuu ayuxuna borotiin u yahay war anigu ayax cuni maayo maxaa kala ii sheegaysaa waxay weydiinayaan wax walbo la cuno waxay u fiican yihiin waa la og yahay ayaxa xaguu u fiican yahay xageesa loo cunaa ayaxa anaa ku takhasusay awlaad badan mataana waxaan ahayn badali maysid indhahana borotiin weeye waxa way toosh waa ku shidmahaya ما jirto ayax hal ogaada ayax ma hadda ayaxiina tirahdeen waxa weeye mataana lagu dhalahaya mataana lagu dhalaa ayaxu waxa weeye waa shay hal maqli jiray hees la yiraahdo waa shay muhiim cuna malayga hadda waxay noqonaysaa waa shay muhiim cuna ayaxa war heedahaya war ama dubta ama shiisha ama cuna saa doontaan yeele gobolada waa in laga dabargoya ayax haddaanu nahay iskumaan waxaan uga hambalyaynayaa ciddii farrinteena gudbisay oo qaadatay oo ayaxa gooska kushiisa ku dhameeya gooska ilaan si kale kuma dhamaanaya cid kastoo ka soo jawaabtay barnaamijkeennii hore ee dabargoynta ayaxa dalkana ka dabargooyey waxaanu leenahay hambalyo qof kasta oo Soomaaliyana waa in uu deegaanka si kasta oo lagu dhawri karo ayaxana lagu dabargooyin karo tilaabadeeda u qaada hambalyana leenahay waa iskumaan oo leh waxay iskumaana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya danlana ma yeelayno ku filan